هلا والسلام عليكم ورحمة الله dib kusoo dhawaada mar kale casharkii Dr. Botaan xisaabta waxaanu ku jirnay dhameystiraynaa kan ku dhameystiraynaa qaybtii ugu horeysay ee ah exponentsku mar dambana waa arki doona iyagu waa weyn laakiin qaybta nagaga filan bir aljabrada waxa weeye qaybtii u dambeysay qaybtan maxay tahay evaluation waa evaluate gareyna waa qiimeynayna aynu aragno qiimeyntu waxay noqotaa in lagu siiyo evaluate exponent in lagu siiyo variable waa sida x iyo n iyo m iyo xarf kasto kamid ah xarfaha markaas waxa lagu siinaya waxaad ku sarifan lahayd waxa lagu leeyahay x ku wuxuu joogaa labo halkan oo kale waxa halkan waxaad isku dhufataa x power 3 iyo 3 power 2 hadduu x ku laba joogo dhib male markaas waxay tahay inaad ka nasiib kana saar tiraahdo booskii x ka inaad gashatid numberka lagu siiyo ama lagu yiri ku sarifo haddaynu sarifno x ki booskii siibaynu waxaan gelinay 2 2dii waxaan ku jibaarnay 3 halkaas waa garanay 3 tan inta awal bayba iska ayna wadanin wax x iyo waxba sideedana ku daynayna marka 2 iyo 3 goor la isku dhuftay iyo 3 goor laba goor la isku dhuftay 72 ayna siinayaan halkan y power 7 y power 4 waxa fiican markii y power 3 ta qiimee baa lagu yiri noo sheeg meeqay noqonaysaa mar haddii evaluate garo waxa loo baahan yahay tiro 2 5 10 konton waxa loo baahan marka y power 7 iyo y power 4 marka hore fududeyso oo sharciga aad soo marto powerada ku fududeyso waa naga kala jari jirnay marka waxay noqotay y power 7 y negative 4 dilego y power 3 y power 3 di marka hadda 3 ku bedel booskeeda waxay noqonaysaa 3 power 3 waxay noqonaysaa 27 ayay noqonaysaa haynu ku socono marka halkan sidii caadadu ahayd waa adiga laga rabaa inaad ka shaqaysid ansaradiina marka kadib aad fiirsatid kan ugu horeysa fiiri ereyga if ba mar raacsan marna waxa la dhihi karaa for ama when baa la dhihi karaa waxaasi qiimee marka uu variable ki ama x ki ama y di inta yahay marka inta yahayda ifna waa la isticmaali karaa when waa la isticmaali karaa for baa la isticmaali karaa wax lamida so waad aragtaa 1 ilaa 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 halkan joojiso ka shaqee sidii caadada ahayd jawaabtii ayaan u gudbaynaa markaas markaad dhamaysid hal meeshaan u gudbayna u gudub markaa kadib waaya sideemaynu u qiimeynayna waa sahal ka nasiib kana saar booska x ka number 1 ka waxa ku bedelataa 3 power 4 no 81 number 2 ga booska m ta waxaad ku bedelataa 21 hadda answerku waa 3 waad aragtaa number 3 ba halkan laga rabay number ba meesha ka maqan ka bood number 1 kan laba goor qorno m power 4 kan markuu yahay 2 power 4 markuu yahay hadda booskii n ka laba geli waa 16 kana number 3 ga halkan ka muuqdana booska m ka waxaad gelisaa maxaan gelinaynaa 2 haddaan gelina 2 power 5 times 2 way noqoto waa 64 booska kan maxaan gelinaa ka hadal male waxaan booska x keena wan gelinaynaa wanku dee isma bedelo jibaar kastuu leeyahay waa wankiisii hoosna waa 9kii halkan y power 0 waa naqaanaayo markaan waxaan ku bedelanaynaa y da 4 so 4 power 0 lagu dhuftay 4 power 4 waa 1 inta lagu dhuftay waayahay hadda waad aragtaayo markii n na lagu sarifo 4 sidaas uga shaqeynaysaa 12 bay soo baxaysaa halkan waxay soo baxday halkan oo kale waa muhiim number 8 ka waan isku jarjaray marka hore intaan sarifan hadii kala nafta iga baxaysa tirooyinka inta la isku qaybintooda isku dhufrado waa inaad variables ka marka hore yaraysataa x power 6 x power 5 marka la isku qaybiyo hal x ba ka soo haro 1 wata x power 3 x power 2 hadii la isku qaybiyo hal x oo 1 wata soo haray marka x power 2 waa soo haray marka 4 ka ku bedelo 4 power 2 halkaas ay 16 ku noqotay midda u dambeysana jawaabteeda hubi inay noqoto 648 hadii wax ka khaldan yahay soo sheegi kartaa intaas ayaan kugu dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaybta ku soo xigta waxay noqonaysaa dabcan square rootski square ma hay cubic rootski ayagoo weyn oo bari algebra marka la soco ka harin intaas ayaan kugu dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi